الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم qisadeenii inoo soo taxnayd ee dowladaha Israa'iil iyo kuwa ku hareeraysan say isku hayaan maanta bal markii hore Iiraan iyo waxaan ku ballansanayn iyo maxaa la yidhahdaa Israa'iil marka waxaynu ka hadli doonaa laba maalin ka hor Netanyahu ayaa wuxuu sheegay waraysi uu la yeeshay janaalka la yidhaahdo 24i la yidhaahdo oo Israa'iiliintu ay leeyihiin waraysi uu la yeeshay in uu yahay maxaan ku idhaahdaa nin dareemaya ruuxi ahaan in loo soo diray Israa'iishii weyneyd inuu dhiso sheekada uu sii faahfaahiyo maxaad uga jeedaa markii wariyuhu ku yidhi arrintaa wuxuu yidhi aabbahay oo kale jiilkaas waxay ahaayeen buuri jiilkii dowladda Israa'iil dhisay bay ahaayeen buuri sameeyey innaguna waxaan nahay buuri dadkeenan hadda joogaay waa inaynu samaynaa Israa'iishii say u sii jiri lahayd iyo say u taagnaan lahayd iyo say muddo dheer carruurteena aan uga tegi lahayn waa inay noqotaa marka khariidad baa lasoo dhigay khariidadaas oo dabcan Falastiin oo dhan ay ku jirto Lubnaan ay ku jirto Urdun ay ku jirto Suuriya inta Kurdiyiintuna ay ka dhiman tahay halkaa laadiqiya dhinacan iyo xaggaas la qaatay oo xadka Turkiga halkaa ay gaadheen Ciraaq oo galbeedkeeda oo dhan ay qaateen Sacuudiga oo dhinaca waqooyi oo dhan ay qaateen Masar oo xadka ay mariyeen Qaahira ay mariyeen saasay ka dhigeen marka khariidadii Israa'iil al-Kubra oo calankii midabkii maaragtay buluugga iyo caddaanka lahaa marka wada buluug laga dhigay xidigtiina lagu dhex sameeyey marka Israa'iishan weyn maaha Israa'iil uu hadda isagu ku hadaaqayo wax jiro oo meesha ku dhex jira gaar ahaan sahyuuniyada diiniga ah iyo sahyuuniyada qowmiga ah ba labadaba wax isku waafaqsan yihiin baa jira oo ah Israa'iisha weyn in la sameeyo Israa'iisha weynina intaa uu hadda sheegay dee ay khariidada ku sheegeen weliba qaybaa ka maqan Madiiniya baa ka maqan marka si loo eego iyo Ciraaq qaybo ka mid baa ka maqan marka uu arrintaas soo bandhigay waxay ku noqotay marka fajicisa ku noqotay gaar ahaan wadamadii xiriirka la lahaa dariskana la ah Masar oo kale Imaaraadkii oo kale Urdun oo kale wixii dee Gaza u gargaari lahaay oo dhan ee ku daawanayay gaajada iyo dagaalka iyo dhibka in fara badanna dadka waxgaradka dunida islaamka ay u soo jeedinayaan wadamada kale war meeshaas khadkii difaaca koowaad bay idin tahay hadday halkaasi jabto meeshaas laga soo baxo idinkuna meeshiina joogi maysaan walaaladiin maaragtay wax u qabta arrintii marka waxay noqotay afkala qaad bay ku noqotay nimankii la saaxiibka maxay arrintani weli waxa kale ku soo hagaagtay waqti hadda aynu 5 maalmood ka hor laga joogo Masar oo u saxeexday heshiis dhinaca gaaska Israa'iil shirkad ay leedahay ay la gashay oo ilaa 2040 lacag 35 bilyan oo dollar inay ku siinayso marka tii iyo tan waxaba u dhaxeeyayba 3 maalmood baaba u dhaxaysayba maxay isku soo hagaajiyeen marka oo ay arrimahaas isugu soo beegmeen ka hor kumuna dhawaaqin ma odhanin markuu ogaaday in iyaga khasaaraha ka soo gaadhay Gaza intiisii badnayd ay daboolayso masaaridu ay daboolayso iska daa carabta kale wax laga qaaday wuxuu ku dhawaaqay arrinkaas ku dhawaaqay wadamadii carabta hadaba markaa waxay uga jawaabeen siyaabo kala duwan masaaridu waxay ahaayeen qolada ugu liidata wasaaradooda arrimaha dibadda markii ay arrintaa ka jawaabayeen waxay yidhaahdeen waxaan ka sugaynaa Israa'iil inay caddayn keento waxaan warbaahintu ay sheegayso wadaninkii waxa warbaahinba ma sheegine waraysi telefishin ka mid ah telefishinada Israa'iil 24i la yidhaahdo isagoo fadhiya oo ra'iisul wasaarihii ah oo Benjamin Netanyahu oo lafihiisii iyo haragiisii iyo muuqiisii oo dhanba ay muuqdaan iyuu yidhi hadalkan marka caddayn kale uma baahna de marka waad sugaysaa ma jiraan xataa haddii arrimihii diblomaasiyadda iyo waxyaabihii xiriirka dowladihii loola noqdo maaha arrin aad caddayn iyo sheekadan maaragtay aad ka sugayso maaha Urdun waxoogaa way ka yara sarreysay arrintaas waxay ku sheegtay iyadu maaragtay arrintaasi inay tahay wax nabadgelyadii wax u dhimaya oo bariga dhexe fowdo ka abuuraya weli carabta maaragtay inteeda badan nabadgelyadaasi sheekadaasi daba taagan tahay nabadgelyadana haddaan ninkaan warankaagu gelin weedhaadu ma gashaa la yidhi haddaadan adigu iska celinayn ninkii dee mar nabadgelya meesha ma jirayso marka waxa halkaa ugu roonaa dabcan Kuwaitna way ku jirtaa wadamada khariidada ku darsaday oo halkaa gacanka Hormuz halkaa ayay ka galaysaa khariidadu
marka Kuwait iyo waxa ugu adkaa Sacuudiga ugu adkaa labadoodu say uga jawaabeen waxay ahayd si aad u adag ayay uga jawaabeen oo aan weliba Sacuudigu wasaaradda arrimaha dibadda kaliya kumay daynina niman kale oo Turki Faisal iyo ninkii sirdoonka haysan jiray niman kale ayaa iyaguna aad uga hadlay oo ku tilmaamay maaragtay Netanyahu hadalkiisa wax laga yaqyaqsooday iyo wax maaragtay inuu dhiig yacab yahay waxay tilmaameen wuxuu yahay oo dhan bay iyay ku dul butaaceen Kuwaitna waa iyadu isma bay dhibinba waxay tiri anagu wadanka dagaal baan kula jiraa horeyna umaanaan aqoonsanayn amiirka dalkaasi wuxuu soo saaray qoraal inaan maaragtay sinaba qof baasaboor dalkaasi leeyahay wata agagaarka wadankaas baynuuna maaragtay kasoo dhawaaninba hadda kuwa kale iyaga ma khusayso marka carabtu waa iska kala go'an tahay waa la qolo walba meesheeda ayay ku aamustay marka arrintani waxay muujinaysaa sida nidaamka carabta ee jira jaamacadda carabta iyaduna hadal liito kala sheegtay in jaamacadda carabta jaamacadda masaarida in lagu sheegay ku fiican tahay wax jira baanay ahayn badana marka waxa muuqata nidaamka carbeed ee hadda maanta jira wuxuu marayaa marxaladii ugu liitay ayuu marayaa inuu ku dhiirada oo maaragtay wuxuu tilmaamay inuu ka awood badan yahay wuxuu tilmaamay isagu inuu meesha gobolka xukumo wuxuu tilmaamay inaan isaga laga daba hadli karin waxaasoo dhan waxay tilmaameen inay maaragtay caddayn u yihiin sida isagu wax u dhigay marka wadamadaasi carabtu waxa muuqata inay aad iyo aad arrintaasi maaragtay ay ugu hoobteen una liitaan oo haddee waxa la filayay kolka arrintan oo kale imika uu ku hadlay waxay ahayd ugu yaraan xiriirka inay joojiyaan xataa inay gooyaan xataa ma kuwa xiriirka la leh inay joojiyaan oo yiraahdaan bas xiriirkeena halkaas ku hakanayaa safiirka Israa'iil ha ka baxo magaalo madaxdeeda iyaga koodana ay u yeedhaan kadibna ay yiraahdaan arrintaasi wax ka soconaya ma jiraan tusaalahaan ciidamada imika Israa'iil oo kale halka maaragtay marinka Salaaxadiin magaalada Rafax soo galay oo heshiiskii Camp David 1979 uu dhigayay inaan ciidan Israa'iili meelahaas aanu iman karin ciidankaas waa inuu meesha ka baxo haduu ka bixi waa kii masaaradu inuu dhinac kale isaguna soo taagaan taangiyadoodii iyo madaafiicdoodii iyaguna soo taagaan Masar dagaal bay u diyaar garowday la yiraahdo Urdun saas oo kale la yiraahdo ayay ahayd meesha lagu kiiska lagu maaragtay lagu geejiyo marka kolka lagu geejiyo waxa keeni lahayd marka saxday keeni lahayd riiqasana way neefsan lahaayeen neefta ka soo boodi lahayd oo maaragtay dad Ilaahay u gargaaray ayay noqon lahayd laakiin xigmadda Ilaahay baa wata inaanu dad xun aanay guusha keenayninna waa iska caddahay cidda guusha keenaysay waa qof mu'mina qadiyadiisa rumaysan Ilaahay ku kalsoon oo dhibka u dhabar adeegay sida taariikhdu ina barayso baa guushu gacantiisa ku iman doonta arrintan waxay muujinaysaa in nidaamyada carbeed ee maanta jira waqtigii ay sii jiri lahaayeen inay adag tahay oo tagayaan sidoo kale waxay muujinaysaa arrintani in Israa'iil ay daalaa dhacayso hadda waxa arrintan ka horeysay oo tan wadamada kula Israa'iil weyn baa ku riyoonaya inaan dhameystiray la ii soo diray oo marinaya uu leeyahay waxaba ka hor ciidamadiisii oo diidan inay Gaza galaan oo isaga ay isku dhagan yihiin ninka la yiraahdo Zamir bandulaha ciidamada Israa'iil uu leeyahay waranagu meesha gali mayna hadaan gallo waxay noqonaysaa dhooqa inaan lagu hala galay marka iyaga laftoodu ma muujinayso inay guul hadda taagan yihiin iyo waxay muujinaysaa qof markuu sakaraadayo awood badan oo maaragtay awr mar la gowracay oo kale ama maroodi la gowracay oo kale markuu furfurleynayo wax badan buu maaragtay iyo ku rafanaya niman rafanaya ayay iyaga laftoodu hadda ay u egyihiin marka in nidaamyada carbeed iyo Israa'iil say u kala horeeyaanba inay tagi doonaan ayay u badan tahay marka si kooban arrinta markaynu sheekadeeda u sheegno waa intaas wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh